culays badan oo ku dhacay dhaqaale badan oo ka burburay iyo sidoo kale xanuun fara badan oo xilligan ay dareemayaan boqolaal ka mid ah shacbigii saamaynta xooggan uu ku keenay dabkii ka kacay gudaha Hargeysa isma ay dhiibin ee mar kale ay si xooggan gucloorad ugu jiraan sidii ay u sii anbaqaadi lahaayeen geedigooda ganacsi waxaanay markan ku jiraan hawl maalmeedkoodii caadiga ah iyagoo ku sugan hareeraha dooxa weyn ee Hargeysa si ay ula soo baxaan quuta daruuriga maalinimo ee qoysaskooda ay ku quudin lahaayeen taasi macnaheedu ma aha inay badbaaday hantidii iyo sidoo kale alaabtii kala duwanaa ay iibinayeen balse dadaal fara badan oo ay sameeyeen saacado gudahood mar kale waxayna nabteen sidii ay u sii anbaqaadi lahaayeen adeegii ay siin jireen shacbiga ayaga kan waa imisa qiimayso waa 20 ka sano 20 ka siinaysa tanna kiilooga waa imisa kiiloogiisu 14 qaarkood ayaa la hadlay telefishinka Somali Cable waxaana yiraahdeen sidaan kulley waxaan joognaa dooxii Hargeyso oo runtii waxa weeyaan maanta loo aayay annagoo markii hore waxa way mayr ka shaqayn jiray la yaabi jirnay suuq noqodkiisa badan uu ka shaqayn jiray dooxa maanta anu waxaan kamid ahay dadka ganacsatada suuqa ku jirtay gaar ahaan qaybta booshariyada ee waxa dabku saameeyay waxaan halkan keenay meeradaasaan ku iibinayna dooxii wadarkasan uu buuxaa ilaahay mahadi waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa maanta si sharaf lagu shaqaysanayno isagoo waxa weeyaan ur iibinaan lahayn markii horena dhibaatadii ka jirtay dooxa dhaxmarkiisa dhibaha maantana anagii baan ku dhex ganacsanaynaa arrintaas runtii midiya ilaahay loogu mahadnaqaa maayirkana waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo subxaanahu wa ta'aala ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkii dhibaatada u gaadhayna waxa bedel khayr qaba siiyo intii ku dhaawacantayna waxa way ilaahay ha shaafiyo maanta waxaan joognaa dooxii Hargeysa qudrad leedahay iyo ilbla hadaan nahay khushaadana nimcaanu ku jirnaa adduunyaa burburtay dad baa baaba'ay hantidoodii waayay haddana dadkaas anaku aan wax la qabnaa oo naga sii daran marka anaku dooxii baanu joognaa maayirka eeguna namu xumayn halkii uu imaka sameeyay ee wadada uu ka sameeyay yaanu hilibla iyo qudrad leebaanu waranay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan nahay dadkii shicibka ahaa ee ka adeegan jiray maxayday suuqa masiiba wallahi ka dhacday alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay masiibada inaga cawilo ayaan horta ilaahay ka baryeena imaka dadkii wallahi way dhibaataysan dooxay waran yihiin laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin tan iyo ku xunba waa la soo maray inaan ka soo kabanaan insha Allah ilaahay ka rajeynaya alxamdulillah rabbil caalamiin dawladana waanu mahad celinayaa Abdikariin halkii qashinka iyo bulaacada iyo xashiishka ahayd waanaga ku ganacsanayna oo fadhiisanayna lagu tukanayo sijaayada la dhigayo ilaahay bay mahad u sugnaatay maayarkeena madaxweynaheena ilaahay baa mahad iska leeyahay dawladeena waanaga ku ganacsanayna iyadoo nadiifa waxaana hilblihii waaheen sarwada waaheen ka gubatay hantida ugu balaaran ba anagaba naga gubatay hadii hanti la doonayo hantidayadii naga gubatay shacab iyo dawlad iyo hay'ad iyo duni wixii wax nagala qabanaya ayaan u baahanoo diyaar u nahay ma garatay ilaahay baa mahad leh waa qadar ilaahay baa nagu dhacay waxaan ilaahay qadarina ma dhaco waa fi nicmillaah Faisal Mohamed Adam Fasafifa TV-ga Somali Cable Hargeysa Isarif money exchange sariflaha isticmaalka lacagaha danabaysan iyo dadku tirsadaan dollar iyo cash Isarif isticmaal amradiisa isku toosan zaad 326326 idahab 932639 Isarif